حسوق يدي حسوق صومرنيو وحيد الملايقو موسي أنو كمظلومة يو كديدي أومي تدي ملقها قرنكي قوعن مداني علنكيغا إيو ماقعا سومالي لان مركنسيسكا أودينيو حسكني ومالنتان حرني ما إيو ما موسلني حرني ما إيو ما موسلني مداني علنكيغا إيو ماقعا سومالي لان مركنسيسكا أودينيو حسكني ومالنتان حرني ما إيو ما موسلني حرني ما إيو ما موسلني. ورحمة الله تعالى وبركاته دغستياشيدا قيمها قدرينتا مونسا توسكا هودنا ugu dhageysanayo oo markale iyo warbaahinta idaacada CKSUdaala banaga dhageystaan mowjad dhererkeedu yahay 3.9 caalamka oo dhan www.cksu.fm.com waa hagaag dhageystayaal waxaan jecelahay inaan halkan idinku soo gudbino dood aan la yeelanay laba siyaasi laba aqoon-yahan oo labaduba ka soo jeeda dalka Somaliland gaar ahaan siyaasiyiin uu mid ka mid yahay siyaasiyiinta u tartamaysa doorashooyinka baarlamaanka Somaliland iyo sidoo oo kale siyaasi isagu Somaliland siyaasadeeda qawaday oo haatan uu guriyo shubtay inuu siyaasadda Soomaaliya qayb ka noqdo markaasna matalaya dhinaca Soomaaliya ka waxaan dood noqon doontaa Somaliland iyo Soomaaliya walow ay labada siyaasiba Somaliland ka soo jeedaan haddaba waxaan jecelahay siyaasiyiintan in baro waxa ugu horeeya Saciid Cali Qurbaabi oo isagu ah musharaxa xisbiga la yiraahdo hiigsi qaran ee u sharaxan musharaxnimada dalka Soomaaliya doorashada la filayo inay dhacdo dhawaan hadii ay baha wadada lagu simo sidoo oo kalena Khadar Maxamed Jaamac oo ku magac dheer Khadar Guun oo isagu u sharaxan baarlamaanka aqalka golaha wakiilada Somaliland doorashada la filayo sanadkan inay dhacdo hadii ay baha wadada lagu simo waxaan jecelahay marka hore inaan saaxiibkii Cabdullaahi Goorislo oo khadka telefoonka haatan inoogu jira inuu noo furo dooda si aynu u furno doodeena Cabdullaahi ku soo dhow walaak maxamed aad baad u mahadsantahay kan naga dhageysanaysaa weli waa 93.1 FM idinkoo naga dhahan kara sumada internet ku leenahay ee www.cksu.com oo tawiyada waxigeeda waxaad naga dhahan kartaan 93.1 FM walaak wasalaam maxamed oo hore lacab uu sheegay waxa aan ku soo dhaweynayaa dooda oo muqtayeen maanta dooda ay noqon doontaa oo khidmaya waa Khadar Jaamac Guun waa Khadar Guun oo in badan ma qasheen oo intan ka dhageysteen laakiin waxa Maxamed Cali Qurbaawi waa ku cusub yahay idaacada kulli taawo ayaa muqtayaan ku soo dhaweynaa insha Allah hadii Allah awood leh isoo doodna waxay noqonaysaa labada muqtay musharax Khadar Guun Jaamac uu socdo muqtay baarlamaanka Somaliland iyo Qurbaawi oo isagu ku sameeya حسب قرنات سميس حسب لهذه قرنات سميستي أما هيك قرن أيوه هذا ما يعني هي قرن راين أقرأ وأقرأ الحين لبدي نبغى كسر وينيا تطلع حين قبليا ساعتين محمد عسل نحمد وهاجك عبد الله آدي أدود ما صدق هدي أنا وهو الرئيسي مشرح حسب هيكسي قرن كشرحان دلك الصومالي مدحتمد أنا وشرحان إنه مدحوينه كان نقضاء سدا وسقبا نمتي ودوناي هذا واحد قصور وين يا سعيد علي قرباوي وان ويديني سؤال شو هو الرئيس وحتى هاي أقوياء بس سياسي كسوت شيء دلك الصومالي محاك اللي في إن أو عرض دورشة الصومالية أو دلك هاي الصومالي نمتي كدور بدلك الصومالية مدام السياسة هان أي هاتن الصيان لبدلنا أي كليهين سيدابد محاك هو اللي في سعيدو إن رنتي الصومالية كان قطع مشرح علمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركبوه الرئيسة إلهي بمهضله مرلبات وين كم هذا علينا يا شغالة إلى عدة CKC يدمان دت كده جيسنا ينوان السلام يا وعن كلو هذا علينا يا صاحب كي يلدو ذي يا مسياسي كما قويان كقدر كون لبدينا وين السلام يا شغالة ودن سؤال شادين كتشوابو آدي ويديسي محمدو هرتا لبدل بينو كلاهين ما أمسنا نقامنهان ما أمسني
Soomaaliya iyo Somaliland inay laba dal kala ahaayeen taariikhda haddii aynu dib u raacno dhul Soomaaliyeed oo gumaysi kala qaybsaday un baynu ahayn dabadeed iska kiciyay gumaysigii anigu waxaan ka soo jeedaa gobolka Sanaag baan ka soo jeedaa suudaankayguna waa suudaankii gobolada waqooyi markii aynu xorownay baynu u hilownay in aynu Soomaalida walaalaheena koonfurta la midowno marka micno ma ahayn inaynu dawlad ahayn dawlad waxayna ku ahayn calan meel lahayn oo calanka aynu qaadanay wuxuu ahaa calanka buluuga lacag maynu samaysan oo lacag maynu lahayn baasaboor maynu samaysan haddii waqtiga aynu intaa samaysan lahayn oo intaa aynu yeelan lahayn calan ka duwan calankan Soomaaliya oo aynu taagan lahayn oo beerta xorriyadda ka taagan lahayn haddii aynu lacag samaysan lahayn haddii aynu baasaboor samaysan lahayn waxay la oran lahaa dawlad baynu ahaan lahayn markaa laakiin intaaba maynu samaysan oo xagga inaga ayay ahayd dhibaatado oo welibana dadka Somaliland degan qayb ka mid ah la ordeysay markaa oo rabay Soomaalinimada waana ku taageersanaa waxaan xasuustaa Garaad Cali baa wuxuu u yiri hadal haysa oo hadda la sheego wuxuu yiri balkaadiya umushwa waa la 40 bixiya aynu 40 bixinay balkaadiya oo aynu wada hadal leh may waa koonfur baa la geeyay sidii baynu walaaladeenii koonfur kula midownay marka maxamedow oo taasaan ugu aaminsanaa talabaad soo noqodkii la soo noqday oo 1991 oo la yiri waanu la soo noqonnay taa u dhireedo la isma raacsanayn oo 91 dagaal baa jiray oo dagaal qabiil baa jiray oo hawlo badan baa jiray koox yar baa tiri waanu la soo noqonnay haba la soo noqday ilaa 91 ilaa hadda sabka sano waxay noqotay kud ka guuro qanjo u guur wixii laga dagaalamayay wax ka daran baa meeshii yaalay oo ilaa hadda yaala waxa laga dagaalamayay oo jabhadu way ka dagaalamayay ama dadka la iskeedu uu ahaa cadaalad darraanu ka dagaalameynaa dadka waxaan kaloo ka dagaalameynaa muxuu ahaa sinaani ma jirin waxaanu kaloo ka dagaalameynaa dadka oo la leeyahay wax badan baa laga hadli jiray bariga laga dagaalamaya wixii afka lagu kala qaadi jiray baa sababkaas dhaba meesha yaala marka arada taasaan anigu kaga jawaabayaa hadalkana aan uga baxayaa waxa aynu ahayn dad Soomaaliyeed oo gumaysi qaybsaday markii dambena iska kiciyay laba dawladood oo isku biirameen ahayn marka haddii aad Siciidow inta aanad ka bixin hadalka iyadoo qadar minida ku haray aad ku soo dhawaato mar kale maxaa su'aashii aan ku weydiiyay jawaabteedii aad ku soo noqoto maxaa ku kalifay in aad Soomaaliya iska sharaxdo adiga oo reer Soomaaliland igu kalifay markii aan dib ugu noqono isku tagi aynu isku tagnay sidii aynu ahayn oo sharaftaynu lahayn iyo qiimihii baa ii muuqda nin waxaan ahay wax ku soo bartay Soomaalinimadii ku soo koray ku soo barbaaray marka sawirkii wanaagsanaa oo waqtigaa jiray baa ii muuqda soddonka sano oo aynu dhibaatada ku dhexsinay sida aynu nahay markaan eego iyo geeska Afrika siduu u socdo waxay inoogu badisaa midnimadii Soomaaliyeed bay inoogu badisaa oo aynu wax ku noqonaynaa sharaf iyo qiimana ku yeelanaynaa magacna ku lahaanaynaa sidaynu horeba u ahayn dalka Afrika ugu horeeya haday noqoto cudud iyo haday noqoto dhaqaalaba sidii baan rabaa inaynu noqono oo aynu u hogaamino Afrika waagaag waa si wanaagsan han u soo noqdo Khadar Guun Jaama oo nidhaahdo Khadarow wad dhageysanaysa si waxaan ayaad ula socotay sidoo aragtaa jawaabta uu ka bixiyay musharaxa Siciid sidoo aragtaadu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا الهان تينات باندي سلام يا بحضة إلى عد CKCU أنا عبد الله محمد أنا آدم ورسول ويني وانا سلام يا نيكا ولا لها ناي سعيد علي قرباوي horta runtii anigu ku duwanahay sida hada qowdagay Siciid kulli nin binaadi de markuu bareero uu isagu muraad uu leeyahay ama go'aan uu qaato kulli de waxleeyntii inay midow caday midka madow waxa marka horta anigu leeyahay warta waxaan aynu ku noqono koow xorriyadda markii la qaatay waxaynu ahay dad la yiraahdo Somaliland waxaynu ahay maxkamad Ingiriisku markaa gumaysto oo la yiraahdo British Somaliland Protectorate
koonfurna waxay ahayd Soomaaliya Italiano ay ahayd hilow baa jiray Soomaali jacayl baa jiray haadan u badsanno inagu dhammaanteen waa maca Siciid baan ka hadlayaa Somaliland oo dhan hilow ay nahay Soomaali weyn waadugin waxaan heesu qaadanaynay inaan wajeeray ka soo hooyo waraabaha ilaa iyo naftiibaynu kubnay in meel la isugu yimaado walaaltinimaynu ku insaynay waana jibadii lagu xantoday waqooyiga ee la yiraahdo magaranaysa iyagoo jibaysan ayay soo galeen hataa waxa jiray ninkii soo balowra jiray siyaasiga raxweynta wuxuu yiri war sida si wax lagu wada galan maahe maad wax la timaadaan wax kala qorataan waa soo bacdaladii laga hayay waxa kale oo jiray cadal laftirkiisu wuxuu si fudud dad ku timaadeen hadda raalli ku tihiin yaanuna way idin la qaadanay yani waxyaabaha dee taariikhdayna soo maray ay kamid yihiin inagu markaa jidda Soomaaliyeed bay haysay taasaynu ku tagnay nin walaalkaaya oo idaan isaqoon oo gumaysiidii kala qoqoday kulli dee jacayl baad isku qabtaano maanta Soomaaliland jacaylka isku qabta mid ka badan baa markaa la isku qabay Soomaaliyeed baa la wada raadinay aniga iyo garaadka maanta leenkay gula jira Siciid maanan kala ahayn laba reer oo laba reer lagu kala magacaabo Soomaaliland Soomaaliyeed baa doonay haddaba waxa weeye hadal baa meesha yaal taliya biyay yaa meeshii biyay Soomaalinimadii baa meesha taala taa waynu noqon doonaa hadalka gadaal baan uga noqon doonaa laakiin tan uu leeyahay wax Soomaali gaal bayna kala qeeyay Afrika oo dhan way soo wada furtay dadka Afrikaana oo xadaarad lahayn oo beeralaya ilaa South Africa ilaa Cameroon ilaa Nigeria ilaa Central Africa ilaa East Africa waxay yiraan la kala gareeyay biyaha waddanka qurayno wiil xadaarad roona waxa waddanka la yiraahdo Abyssinia ama Ardul Habash oo boqortooyo lahaan jiray ismaam kana xuduudihiisa Ingiriiska iyo markii dambe kordhiyay oo xitaa ku daray siyaasadiyo Braidweight marka xuduudo wax la yiraahdo jirin ummaddu sidaas ahayd Ethiopia-daasina intaas oo qoomiyadooda kala afaday ahayd maanta sidii ku joogtaa reer galbeed baa uga taliyay innagana markaynu xorriyadda qaadanay koonfur baynu ku darsanay bilaa shuruud hadii maanta shuruudda qori lahaa ee waxa weeye waxba kala bixila inay Soomaaliland waddan goonihiisu taagayna waxa cadeynaya lixiraadkii June ayay Soomaaliya xorriyaddeedii xaqiiqii gumaysiga ee marayna colony office-ka laga soo dhameeyay boqoraduna ay saxeexday sidii baa Soomaaliland xorriyaddeeda ku qaadatay iyadoo markaa xiriir hoose u jiray dawladdii markaa Cabdullaahi Ciise uu maamulayay Talyaanigu wuxuu siiyay 10 sano ka hor buu siiyay koonfurta waxaan la yiraahdo transitional government kii ku jireen iyagoo ismaamulay oo markaa maamula oo Cabdullaahi Ciise hogaaminayo ayaa hoostooda hadallayno saaray xorriyaddii sidii baa markaynu qaadanay markiiba walaalaha koonfureed oo iyaguna toodu dhaweyd oo aynu waliba la garaacnay albaabada oo ilaa Cabdullaahi Ciise ay kaxeeyeen Sultan Cabdullaahi Sultan Diiriye iyo Sultan Cabdiraxmaan iyo Michael Maryama ayaa waxay u raaceen UK sidaas markaa la isku ogaa in labada wadanba mar la siiyo xorriyadooda Talyaaniga loo caawin jiray oo xitaa qarshiyaadka laga caawin jiray Cabdullaahi Ciise loobiga uu galay sida xorriyadda soo helay sidii ragii kale halkamay Israa'iil ahaa halkii ku jiray ala kulli xaal sidii la isugu darsaday laakiin Soomaaliya isku taala oo khad lahayd ma jirin Djibouti oo dhinaceena xigto walaalaheena si waqooyiga uu dagaalamay waa taabasheen dad badan oo ka soo jeeda gobollada waqooyi hatta xorriyadda Djibouti ay u dhinteen oo ay kamid ahaayeen ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Cadoolo kale iyo Djibouti waa la socotaan dadkii dhaqaalaha ku hayay xadaaradda ay ahaayeen dadka soo jeeda gobollada waqooyi ilaa iyo xitaa buugga jaamac Maxamed Qaalibina dhageysataan mooyee halgankii ay u gashay dawladda Soomaaliya iyo sidii Djibouti xorinteedii intelligence loogu diri jiray loo wadi jiray ilaa ay ku xorowday laakiin markii dambe ayaan daro Djibouti iyadoo aragtay koon Soomaali waxa ka socda oo dhibta kala haysata iyo sidii ugu hongoobeen dadkii Soomaaliland ka soo horjeeday ku biiritaankii Soomaaliya ay Djibouti qaadatay go'aan waxaan aaminsanahay go'aanka ay Djibouti qaadatay way ku hagaagsanado maanta haddii inala soo gali lahayd Djibouti way inala guban lahayd oo Ilaahay baa ka badbaadiyaan aaminsanahay marka haddaan hadalkay ku soo afneero horta wax de kitaab ku qoraa oo leeyahay Soomaali
meel bay wada lahayd oo dhul bay wada lahayd may jirin laakiinse maxaa lagu xisaabtamaa adduunyada ereygan usoo socda adduunyadan international boundaries baa lagu isticmaalaa international panels baa jira United Nations ka mid xuduudaha la sameeyaa xuduudahaasaa lagu wada socdaa Canada iyo Mareykan halkan isku dilayeen waqtiyadii la isdilayay Ingiriiska dadkii raacsanaa boqortooyada ee loo kala qaybin jiray loo rajiray loyalist ama monarchist iyo anti-monarchist Mareykanku waxay u badnaan kuwii anti-monarchist ahaa ee diidanaa boqortooyada Canada markaa kuwii ku dagaalamayay waa kuwa ku dhintay Niagara Falls ee ka mid yihiin Sir Brock ee ka mid ahaayeen 40 area dhulkan xadkii wadiga la mariyay ayaa maanta ay ku kala qaybsan yihiin sidii baa xuduudaha loogu sameeyay hadba adduunyada sidaa ula soco siciido walaal dunida boundaries la jeexay baa lagu socdaa laakiin maalinta boundaries la jeexay ee muddo badan Ingiriiska ku xukumayay ka maantana ciidamada fadhiyaan la soo fadhiyo ha kaasun baana sharciyeysnaa laakiin midkuu diidi maayo borderka waxa liqay Soomaalinimadii aynu qaadanaa liqay 16 gobol aynu noqonnaa liqay marka madow badan baa halkaas soo galay iyo Soomaaliland wax qoraan aan lahayn marka maanta anigu waxaan oran lahaa bal horta koonfurna ku degdegin koonfur wax badan baa u socda maanta waan oran karaa sidii hore way dhaantaa waxay iyadu isticmaalaysaa ictiraafkii iyo calankii Soomaaliya ku shaqaystaa laguna caawiyaa dhibta u badanna iyaday soo gaadhay dhibtii waqooyiga gaadhay tuka badan bay koonfuriyada isgaarsiisay cadaawad badan baa taalla anigu waxaan oran lahaa inaan ku degdegine war horta tanaynu hayno wixii naga qaldanaa saxno warteenan isla toosino waa si wanaagsan qadarow aniga ku siinaya qadar minida su-aashii isaga weydiiyaan dib aan ugu soo noqonaya adiga ahaan waxa uu ku doodayaa Siciid in wixii ay Soomaaliland u dagaalamaysay ee ay intaas oo soo dagaalantay ee 19 ay dib xornimadeedii u qaadatay ama la soo noqoshadeedii in runtii wax ka daran ay haysato Soomaaliland oo ta ka carare ay tahay taas ma jirtaa iyadu wallahi horta Siciid waxna waa uga garaabayaa garaadlay taqaanaa waxna waan ku diidanahay horta dilkiisii aad bare ee soo qaba ahaa ee tooga ahaa ee taagnaa ee ogaa ee raxan la isku xidhayay ee markaa xasuuqa lagu hayay dadka isaaqan la ilaa waa Siciid maanta iga duwan yahay haddii Siciid maanta la xasuuqaa caawa hadalkan kumaanaan muraneen waaniga Siciid isku dhinac baan ahaan lahayn laakiin Siciid waxa weeye maalinta isaga seeftiisii abare iyo ciidamadiisii dawladii aan ilaahda faqistii أنا فقش واحد مثلا الإمام الكيسية الطرة معك كهداو يعني كيستي حول بعضينها بهتلادها حلال دوليد اللي يحيوبيها دلك مركز دلكي أو كلام ما ننقارن سوماليلاند محن كولا هنتيدي اللي سكت هذه ما ننقارن لكن عدالة تفطر بدن أو سوماليلاند iska isaga oo maanta Siciidin dheer ergaaba ah ama hadalka baan deelkiisa ku tagay wasangalaya runtii cabashada ka muuqato waan ogahay waxyaabo badan oo tirsanayo waan ogahay dhismaha ilaa guud madow dambeeyo waa kaale gobolada bariga waxba lagama qaban qowad fara badan oo xagga horumarka ah iyo saami qaybsiga baa jira baan oran karaa haddaba saami qaybsiguna wax rag uu gobonimadiisa uga kaca maaha wax daldan oo dhisan loo baabiyo maaha saami qaybsigun baan anigu oran lahaa Siciido wixii naga maqan intay wax ka maqan yihiin han wada doono han ka shaqeyno yeenan maartay haddii gacantaadu dhulub gasho laguma dhufto waa laga dhirandiriyaa waxay ku wanaagsan tahay inaynu wax yaro wada dhisandirino oo aynu inagu buxubta tashano xataa koonfurta laftirkeeda haddii mar labaad afka uga gala Siciido aniga iyo adigoo wada socon armaal koobkii barigeena ku dhacnay ku ka daran ka dhacla waan oran lahaa waa si wanaagsan haddaba han u soo noqdo Siciid Qurbaawi Siciid Ali Qurbaawi waxaan ku leeyahay waad la socotay jawaabaha uu ka bixinay Qadar Guul intaana su'aasha kale u galin miya ay jirtaa fursad ku siiyay jawaab aad ka bixin lahayd hadalka Qadar Guul waxyar baan ka daba tegayaa Maxamed oo waa mahadsan tahay adiga iyo Cabdullaahi Gunda Cabdullaahi Good hadal halmaan kuma jiro Qadar Guulna walaalkay aad baan u salaamayaa aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa hadaladiisa nadiifta waan ka daba tegayaa oo xogaa hoos buu galay anigu kor baan rabay in laga goosto laakiin xaafad hoos u galay ma rabo inaan xaafadda galo laakiin waan yar taabanaya xaqiiqda marka la eego Qadar beesha dhexu ka soo jeedaa marka la eego hoos u gali maayo beesha dhexu ka soo jeedaa isagu hoos buu tagay
meesha dhexu ka soo jeeda haddii aynu eegno waqtigii dowladnimada la qaatay haddii aynu eegno ninkii ugu qaadqaadka badnaa isagu ahaa ra'iisul wasaaruhu ka noqday Soomaaliya isagoo beesha dhexa wuxuu ahaa waynu garanaa cigaal buu ahaa shantii golaha saru ka mid ahaa hadday noqoto tii kacaanka iyo tii rayidkaaba boqolkiiba 80 meesha isagaa nacfi ku haystay tii markaynu ka nimaadno rayidka ahayd marka la soo gaaro tii kacaanka 1969kii 61kii sanad iyo wax yar ka bacdiba wuxuu bilaabay ninka la yiraahdo khadar ama beeshiisa dhexe inqilaab bay bilaabeen iyagoo aan wax ka maqani jirin inqilaab baa la bilaabay cid lagala tashadayna ma jirin inqilaabkaas keedu ahaa kii xasan keyle ikaadi khadrow انقلاب هو 1961 حتى كان يلقوا دليل وباش دحاها وحبا ما تشرين بقى دولته نكا وحكوها السنة وسقوها وحو انقلابي لما كرانيو كقدب وحو قرار كيري وحي تشري دولتي سياد بردتك للين يفتقشتها وعن هذا اسويدية فقشت دد قاري حي وقبيل لقلت الماما يا أبكى ما قلت استدارة ودافقت عين سببت أوعى مصبح فقشت كمدها فقشنا لقمة الماما فيصل علي ورعب فقشت كمدها لقمة الماما إنا ورعب فقشت كمدها لقمة الماما وحا إنك السومالي لان شوغا وبيسا دعي بقول كيبا تضباطا وأرضيني سياد بري فقش لقمة الماما سو كمدها فقش تامين اسوعي كو عدينيسا فقشتن لغو شيغايا inuu dad gaar aha umada gaara oo faqashtan loo yaqaanay hadii rajiimkii siyaad barre iyo dawladii kacaanka faqash loo yaqaanay Muuse uu kamidaha ardaydii uu kamidaha maxaa loogu sheegi waayay maxaa loo dabageli waayay daga waya kamida oo nimankii SSDF loo diray oo saa u leeynayay oo barkada aasay waa argayso fadhiya فقش لقومة المامو سلاكيشي أردنا بيزي جوكتا فقش لقومة تأمين سوحان ليه هاي فقش هالكاسين وطاقتا ونقرأكرنا تنكر أوليه هاي عد لما اللين حتى عنيك قرباوي هان سلاك بانك سوچي دا ديغان كيغي شدن ديغان ليراهدو والله سكوري اكتيدا oo shidan la yiraahdo quriiro macdan laga helay oo anigu jufaahan aan u deganahay 3 bilood buu dagaal ka socdaa waxaana igula dagaalamaya waxa weeye waa beesha dhexe ila dawladii la soo kaxaystay oo la rabo in deegaanka laga raro 3 bilood buu dagaal ka socdaa qadar oo moogi doon maanaya adigu xanuunka dawladda dhexe ku haysay waa dareemaysay laakiin kana hadda anigu qaba ma dareemaysay anu ma dareemaya taabas anu ma dareemay hayda ma dareemaysay waxa aniga laygu hayo 3 bilood baa la igula dagaalamay hadda dagaal ku socdaa oo deegaan yar oo shidan la yiraahdo oo la soo reegtayda oo anigu aan deganahay baa la igula dagaalamayo layso kaxaysay maamulkan dawladdan Soomaaliland ka soco kal shaale wixii ka dhacay weyn ogeyn sida shacabka loogu leynay okay dib baan u noqonayaa teesiyaad bale military bay ahayd militaryguna dadka ma kala saaro imika Masar waxa qabsaday in la yaado siisi oo military imisa kulo qof u dilay تمرها ملتريغو ما ايغان عيدي كسو horjeeda way laayaan taas military bay ahayd khadrow oo militarigu kii ka hor yimaado wallahi okay waxa la yiraahdaa jasiira 42 qof laga kaxeeyo la laayay habeenka xamar baa joogay sababtii dadka loo kaxeynayna waa taagnaa meeshu ka dhacay mudaharaadkana waa taagnaa kaasa balbalaaray ahayd iska sheeg cali suufi masaajidka agtiisa ahayd wixii la sameeyay iyo saraakiishii lagu dilay iyo wixii la sameeyayna waan ogaa okay dadka jasiira lagu leeyahay dadkii jasiira lagu leeyahay ragii kaxeeyay oo hawsha ku jiray maanta hargeysa xukumayaan qaar kamid ah hargeysa maanta xukumayaan oo fadhiyaan shaambada iyaga kuma degsana shaambadu waxay ku dhegsan tahay qurbaawi iyo wixii la halmaara waxaan leeyahay tii aad ka cabanaysa mid ka daran baa hadda taala waa kud ka guri qanjigo okay tii magaca lahayd oo sharafta lahayd baa dayn weynay
وأد جرويده إلى إنه صح أنا أو واحد قلبان إنه صح أنا أد جرويده ترى ما توهبه حين أو حافظ شفاء قدرتي صدق السنابة شفاء نقطة إما كبيت عالم كمرك الله إيجو بريده ويده أقوياء كسومال لان دكان لو وريسنا فالسؤال لو يدي لك سوتشي لفيس ده وعلى يربى هذا صور نجسي معمول كان هيسي حد أتشيجي فصور نجسي وعي ضدك حكومة صور كي مركو سال الله ضحك عليه وحي بروح نقطة حافظ ما يعد ما تفكر عليه تذكي أول الدكان مايه تذكي سول دكان مايه تذكي سنة تذكي كلام مايه إلى بقول كي بشن يستديت وتشفى الحويني هذا مموسير كمالية دا ممحوها مطلية شيبا ممحوها ممرحين كحجين وحي أوتني وحافظ ذاتي كلامي ولا العاد ماشا تعمل يسوع عنو هذا وقب حياة وحميش حتى يالا وحي هريبا كون أكسن بقول كيما بقول سببته وحي أي كتكتي هدي نقطة هنتيري دتكو أي والله هاي انتياتر كيان دويد بان رجيتري انتياتر كي نبى الوريتي أو سكول كيان كسب حي نبى الوريتي وحردي ترافيك واحد استيد هرسيل وقوليه اللي كبوليس كتبع الوريتي ووحي أي كتكتي تيفقس الشيء أو ودني أي سمايسي وأونا ما تعيد بامرتي كذا واحد وكرديه أو هاميه بربنا أي كتكتي تتبع الوريتي مركا أرجو حوالي أو ورشدي السبركة تتبع الوريتي ما بعد أرجو حوالي هاي تي هراء كشرفت وينابا خضروا وسلسل وينو قرم ويدا إلا صحيح niman kursiga ninkaas ku fadhiyo sameeyba magacan ku isticmaalay haddana kuwiiba ku fadhiyay aniga waxaan ku soo gabagabeynaya Soomaalinimo wax dhaata ma hayne inaguna waynu ku kala badbaadeenaa waxna waynu ku noqoneynaa awoodna waynu ku yeelanaynaa laakiin xaafadna yaraad soo xidhay oo saddex sano aad sidaa isku soo xidhay وهذا ترى ميسو أنا هذا هذا كلمة داسان كدريا كلمة داسان كدر ولا لبر راليا كلمة داسان كدريا راليا وحن هذا كوكب حيا لحية الله بعتكي تون بين قاضي الحرية لحية الله بعتكي ماوي أي تين ميلا بدري حتى أي سمات إنه هاي تون 26 ما أنت هتي أب هاي سنة هاي تون 26 وانقراع لها تون 26 حاجات كوجل حاجات جيتي أي تين ميلا تبغى طاعة يعني يروح كرة مجتان كلاميني ويرس 26 تونكي إنه حرية قادرني حقوق كدن بخبر حاجات كيسي هذا ما أنت هيسان لهاي وما أنت الشرف لهاي 26 تون ما أنت كربة تقول لهاي لكن 26 تون تورته وحين ولا لهاي ديواب تورتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واحد شاله هاي إن خبر جون كسورة شيء خبر جون شباب بلسنا أنت أنا قلت لك سؤال كله إنه واحد جوابك أورانا يا بهذا الكاس وخدر لها خبر كسورة horta aad iyo aad baan idin salaamaya hadalku horta dee kolley haddii dee kolbanimba kii kale uu yidhi dee laysaba jambacsado jaafaajiribkiisu rogayaa anna dee kolley waxaa fiican inaan migaha ixtiraamo iyo ragga nolosha ila jooga dhowr qodobun baan dul istaagayaa 26 June iyada waxay Soomaalidu tiraa haddaad waxaad doonaysaa aad weydo waxaad ka maarmi weydaa la yeelaa 26 June kii ugu heesay anuu ahaa كيلها مجودو عندي بوديها مريسة أنمان لها شيء لمانتين نكى سومالي وقاضي إنت سوه صوت دل كبشري بانها نمكي أقويها كاها مقرن ساي اسمها وطنك حاولي كل قاتشي وافنتي حتى كعانك اللفت الكيس اللي قاتشي واسماعيل على بكر رموت كلها مدي تري تاسواتها تانو شيء يقولي هاي أدية دولة يقول رسيه كاملين هم تعيقال رئيس البرلمان يقول رئيس منقول رئيس البرلمان يقول رئيس تام عدير قرار بوها وحين كقولين كهلاي يوسير كي يعني عاصمات كي يوسير كي دفاع لما يوسير كانوا كهلاي وسير دي سومالي يوتو ومركز تنلق وصريه عيد كي الله ينقى قاضي لبدا حل يرئيس البرلمان بينو كهلاي كيف يجيني الدمابة وحمرك عد عضي in dib loo xisaabtamo leeyahay war Soomaaliyeed marsidana nimankii dhalinyarada ahaa ee ka yimid jaamacadii la oran jiray St Harris oo 12 nin ahaa oo raggii ugu horeeyay kulliyad akademika oo hagaagsan oo legitimate ka soo baxay ahaa raggaas markaa ma garanaysaa inqilaabka dhigay inqilaabku waxay u dhigayeen inay dib u soo ceshadaan horta xorriyadoodii sidaas ay ula noqotay raggaas saraakiisha aan ahayd hatta salaadiinta iyo lama ogeyn maxaan ku yiraahdaa dadka ganacsatada iyagana ficil baadsay laakiin waxa la yiraahdaa maalintii
maalintaasayna sheegtay in la raacabay hel maalintaasay qabashadahay ha yeeshee haddana nimco badan baa ka dambeysay oo soomaali oo dhan baa wada dhistay oo ay ka ahayd tan uu leeyahay faqashana dee faqash waxa anigu aan u aqaanaa maamulkiisii adbafe ee talada isku soo ururiyey ee markii dambe xitaa cid walba leynayey ee dadka maanta walaalihii iyo reer bari ama reer puntland leynayey oo aan qabiil u kala eegeyn oo gacan kululaa dee kaa maamulkiisa waa lagu jiro dee siyaad bafe markii dambe maamulkii faqashta unbaa la hoos tagay ragga aad wada sheegaysoo dhanna shaqaalo dowladeed oo aqoontoodii iyo xirfadoodii iyo magacoodii soomaaliyeed ku kala way ahaayeen laakiin dee rag falalka ka mas-uula may hayn annaga dhinaca la wadaabana isagoo faqashta aan namuun layn isagoo muusana faqashta ka tirsan namuun layn waran caddana namuun layn maamulkii bay ka mid ahayn xitaa rag fara badan oo beesha aad ka tirsantay oo jilbar ka mid yahay oo rag ciidda ka mid yahay kacabdi saxadiinu ka mid yahay oo rag ciidda ka badan ay ka mid yihiin baan annaga dhaawacii dhibaato noo geysan maamulka waynu ogeyn intii lagu soo koobay in yaroo talada ka qaadata oo odayga jifadiisa ah iyo reeraha magacaad ku dhifatay daaroodka unbaa markii dambe talada gacanta ku hayay aakhirkiina waxay noqotay maamulkaa la dilay anigu haddaan qaldanaa hawiyeba isagaa koonfur ka gaxeeye hawiyena maalaha qalad u tilmaamay hawiyena waa kaa isna arkay dulmigii haystay iyaguna waa kii iska kiciyey laakiinse mid waad i odhan kartaa siyaad barre la kiciye qurux miyay ka dambeysay ma jirtaa waa runa soomaaliya markaan ka hadlayo ilaa anaanka maamulkii siyaad barre isagoo sida ahaa haddana maanta soomaaliyiintay soo martay ya soomaaliyiinta dhib soo martay ayaaba ka badanba kiisii baan oran karaa waa soomaaliya laakiin somaliland way ka raysatay faqastii somaliland maamulkii siyaad barre way ka raysatay 5 doorasho madaxweyne gashay tumas maamul bay gashay iyadoo adduunku waxba siinin oo waxba aanay maaragtay calan soomaaliyeed ku shaqaystaan aanu jirin ictiraafna aanay lahayn baasaboorka aanay lahayn ayaa haddana intaa dhaqaajisay beeshaad ka tirsantayna maanta waad ogsoon tahay ganacsiyada ugu waaweyn hargeysa way ku leeday cid maanta taaban kartaa ma jiro taadii tilmaantay ee magaalada yaree lagu dagaalamayana waa laba reer oo walaala ah oo maanta isxiga oo muuse ismaaciil iyo warsangeli ka mid ah labadaa reer haddii aad tiri maanta ciidan soomaaliyana ayaa la socdo sidii faqasta iyaguna iisoo raacay oo ana taasaan tirsanaya horta anigu taamaan ogeyn laba reer oo isdirayo arrintoodana mar la dhex galo sidaa ceel afweynba la isugu diro ceel afweyn gudaheedaba had iyo gooba colaadii ugu daran somaliland aynu ka yaabanay waa ceel afweyn waana laba beesha dhaxay ka mid ah markaa fidnadu dee markay socoto waa maaragtay laakiin de waxaan oran karo maanta waxaanaynu sidno yani midho guntigaa ku jira midho geed saara looma daadso war siciido maanta waxaynu u daadinno ma jirto haddaynu koonfur tagaynana wadahadallada dee waxa weeyaan wadahadalla waan heshiino waa dad soomaaliyeed laakiin dowgeedii iyo marinkeedii iyo waxwada qaybsigeedii iyo habboonaantii sida ugu fiicnayd aynu ku wada hadli lahayn anaaban kuu diidanaynoo ilaa siiraanya xitaa xeerka u bedelay qodobkii dastuurka ku jira ahaa arrinta somaliland waa lagama hadlaan waa lama taabtaan waxa maanta uu ku bedelay siiraanya markuu maamulkiisa joogay in soomaaliya la wada hadli karo waad ogeyd intii la sameeyey laakiin markii dambuu niman dhalinyara oo reer sanaagiyo reer hargeysa ah iyo maxaanku reer burca ah ayuu ergadii koonfurta ka imanaysay iyadoo lagu xumaynayo xasan sheekh waa markuu xiisano joogay ayuu loo soo fadhiisiiyey oo siciid qorsheel baa ka mid ahaa oo waxaa ka mid ahaa ninkii uu dhalayna jaacsangeli dee marka koonfur wax la kala goosanayo dee ina jaacsangeli waa aniga oo waa siciid oo waa sidaadaasoo kale siciid qorsheelna dee waa ina qorsheelo oo waa nin reer maxaanku idhahdaa reer sanaago haddana walaalka iyo reer somaliland laakiin ina qorsheel baa tole u goynaya hawiye oo biimaal u goynaya oo tunni u goynaya oo raxweyn u goynaya dee caqligayga ilimayse waa in wax laysu soo dhaweeyaa ku xumeyn bay ahayd iyo dee arrintaasoo la tiirifeynayay ha yeeshee haddana maamul kalaa yimide wuxuu waa lagu wada hadli laakiin adigii anigu inaan kala soconne anigu waxaan ku leeyahay waniyo tan aad ku degdegtay aad leedahay horta waxaan ka gelayaa imarka anigu maanta waan sharaxay darag tusaalaan ku siinaya sharaxaadaan sharaxay hargeysaan iska sharaxay burcaa xitaan iska maarsanay sababtaan isaga sharaxay dadkii maanta qabyaalad iyo waxa codku un badan uu ku dhacaa deegaankaad ka timid eead ku dhalateed matalaysay anigu deegaankaygii hargeysa xataa gabayla iskama sharaxin baan ku iyadoo gabayla gobolkaan ka tirsanahay oo codadku iga iman karaan maxaan ku idhahdaa berbere iskama sharaxin marka waxay noqonaysaa
in aan maxaan ku idhahday haddii lagu kuuroon yahay aan iska sharxo magaaladaydi taana waxa weeye waa codadkii adigiina maanta adiga oo ka tegay maxaan ku idhahday sanaag bari ayaad maanta xamar u buday odadeeda waxaan ka doonayaa xil anu waxaan ku oran lahaa in haddaad kaba ka talanayso kuwiisaa leega oo ninkii ka aqoonta badnaa ee professorkeena ahaa iyo raggii kale ka horreeyey ku fiirso ina samatar uu ku fiirso ina samatar baa xilkaga waayay oo la yidhi waxaa tahay nin reer boorana ah waanu sheegay in badanna uu ka hadlo waana tagu soo celisay waana hiil qaran raggii bilaabay buu ahaa hadda maanta higsi baa bilowday haddaba maanta waxaan ku oran lahaa tala dambe isugu noqoo anigu tanunbaa waxna kuu diidi maayo wixii faqasta ka qaldamay in ansaxno wixii dowladaheena dambe ee beesha dhaxweli baad u tirinaysana ansaxno in somalilan u baahantahay saame qaybsi iyo cadaaladna anaa kugu raacsan somaliland xitaa beeshan dhexe ee aad isku rarayso ayaan isku qurselin aadba waad og tahay haddaba marka waxaan odhan lahaa waar oohinta badhna waan kula qabaa cabashada badh waan kula qabaa tabashada badh waan kula qabaa cadaalad darrada badh waan kula qabaa laakiin waxaynu u dibina waxaynu haysano ma jireen iniyaho diliibso oo bal hadda soo yaradig baan ku oran lahaa waa si wanaagsan aad mahadsan yahay khadar guun haddaan usoo noqdo siciid cali qurbaabi siciidow sida aanu la wada soconno meel kasta qabiil baa laisku doortaa doorashooyinku ay ku dhacdaa maadaama haddaba aad deegaanka somalilan ka soo jeedo inta aanad xamar tegin iyo doorashada soomaaliya miyaanay ka habboonayn inaad isku daydo inaad dalkaaga aad wax la qaybsato oo haddii aad ka cabanayso in runtii beesha aad ka soo jeedaa aynay saami ku lahayn inaad halkaaba ka bilowdo xisbi ka furto ood ka ololeyso oo aad runtii dadkaa wax u sheegto taa laftooda miyaanay ka habboonayn inta soomaaliya tegi lahayd horta waad mahadsan tahay maxamedow waad mahadsan tahay allaha iska daayay cali khaliif waxaa laga hayaa last 3 years waxaan waday saddexdii sano ugu dambeeyey hanuunin baan waday dadweynahaan hanuunina baan waday saddexdii sano ugu dambeeyey hanuunintii aanu wadnay welibana aniga iyo axmed ismaaciil samatare aanu wadnay waxba tari weyday buu yidhi waxba tari weyday buu yidhi waa professoradii hadda ka hadlaysay khadaru ka hadlayey marka lagala quusay waxaanaad ka sheekaynaysid lagala quusay oo professoradii baa kala quustay وماشي حنونين وحبا تري ماشو حمر نتجي كسو قوسي حق انك قوسي محبب بلابي مركا وي كل يوم باي من دوري مركا هدي ان دب النقض حمر احمد اسماعيل سمتر وحير هل من بالك كفتمه الله يراهو موسى السودي هل من بالك كفتمي oo Muuse Suudi la yiraahdo waa shakhsi baa la kaftamay oo yiri Axmed dadkaagii waa hal shakhsi baa la kaftamay kaftakiibu ila hargeysa u yimi nin baa shakhsi la kaftamay ma fahanti midna waan ku sheegayaayo anigu waqooyi ulma deganay ila koonfur bay dadkaygu degan yihiin oo aan ku ahay degaan ku ahay suldaankaygu ilaa kismaayo dadkiisu degan yihiin oo qabiilo badan degan yihiin oo fayda bay degan yihiin oo tagaayo xamar bay degan yihiin oo tagaayo kuma qurbaan khayr la xigalo hadalladii khayr guud ka kaali marka hore maxaa intaan maxamed jawaashi ku weydiin baan sharaayna ku weydiiyo laakiin maxaa dayga boobay maxaa kaaga baxay hadalladii khadar umtay jawaabtii ku siiyay khadar wax waa qiray oo nin raga wax waa qiray oo si fiican buu uga hadlay waxna waa daday laakiin isagu xaafadii uu kala saaray laakiin xaafadda kala saari maayo xaafadda waa kala saaray laakiin xaafadda kala saari maayo 20 sano waxa la dhisay oo wanaagsan baa khadar oo lugta marisay 30 sanaad maraysa waxna ma haysid qoys bay wixii ka bixi weeyday tan wax la sixi karo maaha xisbigu wadani waayo waa qoys waayo faysal waa qoys kulmiya waayo waa qoys madaxweynihii waayo waxaan aad meesha ku haysaa iska daa aniga gaalkii cadaaba yaabay aniga sidaayay siyaad barata lagama sameeyay xataa siyaad bare lagama sameeyay xataa dawladii hore siyaad bare
waxaan hadda meesha yaalla marka waxaan meesha yaalla khadaro walaal wax la sixi karayo maaha wax sixid lagu midna waa kuu sheegayaa Soomaali isma layne siyaasiyiin baa dadka isku diray siyaasiyiin dan gaara leh oo kursi rabaa dadka isku diray Soomaali ama waqooyi ha joogaan ama koonfur ha joogaan haddaba cid kale haysa ma jiraan saasay isu dhex marayaan anigu waxaan leeyahay nin la yiraahdo Axmed Qorano Abwaan oo gabadh ina Qorano loorin jiray oo dhalay Qorano Qorano Axmed Qorano odayga weyn صح Qorano waxa gabayadiisa kamid ah la yiraahdo waraade gabaygiisaas waxa ay fasirayaan madaxda hadda jirtay fasirayaan haba hoos u daldigi maayeen ninkii dhageysta marka waxaan ugu leeyahay khabarow Soomaali waxba isma yeelin ama waqooyi ha joogaan ama koonfur ha joogaane boqol dalay ah oo dan gaara wadata dadkan isku dirnay boqolka meesha aynu ka saarno midnimadii baynu ku fiicnayne hadda su'aal kaliya xirano shaarku inaga maqan yahay shaarka inaga maqan doono waxa baxay waa hagaag waa su'aal khadar waxba ku darlayd waa ku darayaa waxa ku darayaa maxaynu qabsanay dawladdiisii adka kadib waxaan leeyahay wax badan baynu qabsanay waana tirinayaa inaan waxa fiican beerada marxatigiisu tareeyay anigoo haddana mararka qaar wax tabta oo maamuladeena Soomaaliland mid maamul kasta soo maraba haddana wuxuu kordhinayay wararta waxaad ogaataa waa dalka qura ee isagoo aan nafsiin dhaqaale oo aan international community aan gacanta qaban waa dalka qura ee u footay shan madaxweyne u codeeyay ee doorasho baarlamaan sameeyay ee doorasho deegaan sameeyay kamay dhicin Afrika ee lixda subaxnimo leeyanka lagu jiro lagu kalaho ee dilayay ee tii u dambeysay isha oo laga qaadayo tii u dambeysay isticmaalaysay عرشة حتى بعد بناء المرور كلا عظم كاسري ودوي كان قبل هذايا ورسيدني يور بري وين يجي ربما يا رجل ودني يور سواء كاس عطى إلا إن كان لك دور بسيار تفهم بسن ودني الجبيلي يهو بابادو أشارته كبير جدا زين سنين وكمان كلا بسي تي درا أيا لا بسي تي دور مجلس على صوت دور موجود جوجل لسا كلا بيبي جوجل لسا jaamacadaha maanta dalka ka jira anaga hay isku baan ugu horeeyay maanta jaamacada Camiid iyo Eelaaya doona ka dhisan Hargeysa jaamacad ka dhisan waytiin Qur'aan way ka dhisan yihiin meel aan ka dhisan la cirgaado ma jirto waxa kale oo jirta dekadii waxay doonto waxa noqoto sidii doonada waxa lagu galo dhismaheedu waa ka socda way ka arkay marba fiidiyoda laga soo duuba iyo siday tahay magaalada Berbera waa magaalo maanta ugu bilicda badan Soomaaliland ee dhisantay دور مول كسر حتى ودوري كمجالات هالجيس تاعك دوام بحنوضانه ميل دور دير بامرتا تعيد قرة تدريس الدكتور تجي تاير دور تسوي التاسو والجلسة وإيطال كذا عليه ويبقى مرمي بعد كل يوم كل واحد يسوي ولدي سيجايو سديد يترو وساردو أو فوق قاعدة كتيرة أو سعيدين كريم أيالا بسم الحمد لله وعين كاب العالم إلا بيصير النظام كله حال لا عوضه قرارات بدل حشران وعيدنا في كتيبة كبنيس كمارينة وكمان تعرف إنسان تبرد اللسيني هذا بالعادي كنت بخلاه يحلم وأنا أسرع تبرده بريتش كلفت الكيس رجع عن بكاهية وحكاوية وإني كنت والله حياتها يعيد عليها يحاول يجنع سجينا كرني وقال أركيسان مانتو وحارجيسان معنا وبخدين لقصره وقال أركيسان مروحين ورنكرنا قدنا أول شبه إلى عرضة وقرح شبه الله سور راعي تلدو بها ورمانتو ودلنا بالسنة عرضية شبه كواوي والأمان بالي بتشوره وحكروا يلا تشته وحول بحر يفقه وشيوه بحيوان ونبض والصومالي لأن نبض يعيد كي الله يصير دون كي بسيب الله كي الشباب كوب شاهو كشنوه وحنا تيريش في الشراب ما نصور كلام نيسنا دي شيء يسوي لك أدين في شغل دقالي يسوي كرتي أي ولي أنا كان الشباب يشوف تكبر إذا ورميش أسعيد هو وضع وعلى ذيك كذا تقول سكوي شيء ورميش عن ردي ولحد في الباقي أنا عاين معي وضبطه مالي ويجو عينية إلى هاي هو هجاتي لكن سومالي وحنا يا حي ما عليه هل كان ده تسعيده أدوية لك هذه وحتى ما يسهل كان يسكرك يشرح
oo isa soo sharaxad maxalkeena in isku sharaxno waar adigoo dhisan haddii Soomaali dib la isugu noqdana waxaan ka mid ahaano dadkii dhigayna kala dheerayntii hore berigii hore weyn dishay maalintii goosashadeeda waan ka maqnaana kama maqnayne hadalkii garaadku waa la socotaa burco ka yimid maanta markii la goosanayay kafta buu ku soo gooyay wuxuu yidhi saaqow berigii hore idinkaa yidhi Ingiriis iska kicino waynu iska kicino Ingiriis waa la iska kiciyey ama dagaal baan la galay Cabdullaahi Xasan baa taageersanaa Ingiriis wuu kacay markii dambana waxaad tiraahdaa Soomaali walaalada raawarin kaadinaan idin yiri tiina waa digidii waad lagu darteen haddana maanta waxaadna tiraahdaa inaynu isku soo goosano dhibaato dhacday maantana waan idinku raacnay ergedig warsangeliyay waa garaadku xasan ciise ku saxaynay waa la heli karaa waa garaadku hawaan la joogo warsangeliyay joogo walaal maalintii burcaan la goosanay dad badan ha maqnaadaan hatta caali garaad ma lihidee ما نقول بس ما عنده السودان كان شيء هذا السودان ما تشوقين هذا ما ننتهى منك هذي الجوبتوك هو السجل وهذي إما ده هذا غمادك منك إيه ياكو كفتضيبوها ما ننتهى الشركة واحد قدومين ما ننتهى منك اللي أحمد على عرالة أي شركة قدومك كاها علي خليل نوافدين ما ننتهى جامع محمد قارب حتى وفدين سومالي لانو دوين بتشوفني عبد الدبو عبد السحاب يدون فدي إلى فديني هذا المجلس معناتها هذا روحا كلها قوتك ومشيسة وأنا كل قوتك بورا ما قوت أنت سامي قيسي كهذا شيء بارلمان كان عن قريو أيات تي وقلت غيري كتاجنتي وأن تبكي اللي بتشانقوين ترى ضدك قضلات اللي بتشانقوين وحيابها ولد ورشدوا لما نكتاج بحدك كده تاجن بيش بحادنا هذا الأكتاج أنت اللي كلا عبنا يا الأكتاج هذا أديو تاو وأنا قلنا عن عبنا ومن اللي إليه هاي بوستك على لحظة وشيوط كوسو شفتي وطبعا هاي وواحد بوستا يسارنا هاي تبشر حتى لما أنت تبشرها فيس ديوال وأسو مالي لأنه ربع تلكية وأديو كمت هاي وأرينو وحين كلا تبرنا ولا تبرنا وظهرت كورفرنا كتشنو إلى إنه تشنو حتى يكونفر لو قبطنا وحين لتجي لهين وما أنت إنه كفكر وحين صوهم مريه هرنا إنه كل حساب تمينه إنه وحين يلا نتجنا لكن الدين إلى سعيد ده يسببودي أما كاسو دببودو قارنا هلك تشوفه ورسول سواء بقول هذا كائن عنيه تلك إنه كذا وسوينا السنة خضروا أدب حسن هاي وحن جعل أنا كسورة شيء سعيد أنا سعيدو كلي هدي القدر لا يشوف تلفت ذنوب كوبنا تهاي شتى تقاضوا هايستا وحن جعل أنا كويديو adiga maadaama la socoto sida uu qadar ba sheegay in Soomaaliland haatan isbedel uu ka socdo oo runtii Soomaaliya uu ay dhaanto sida uu hadalka u dhigay adiga ahaan Soomaaliya maanta waxaad kaga doorbidi kartaa Soomaaliland oo qodobaysan ma haysa waxaan ahayn intii aad waa sheegtay horta Maxamed oo waad mahadsan tahay laba kelmadood baan horta tii hore ka oranaya khadar walaalkay وخليش شرحي وإنت سودان إيش شرحي وهرمر إيجا دقايي وحشعب سمايستي خدا لي شعب دستي يدار لي شعب دستي وولي بنا وكدستي ديجان كوسو كسوتشيري ديجان كيجان كسوتشيرو وحو يري ودا لو سميو ولي مارك قرباوي ودادن حقي يا سو مرتا ميل ان دغناهي او ودا لا سميو او كتالو وعفي على الجغرافيا يقانو إرجعوا ما ولي فرق بقنا ولي فرق بقنا هذا سلاح ليه خلري كادي والله شيء هذا الحال بنقصيه تسلح لي أنا دستوى تدقون أكثر الصومالي لان صعدتي ويني غير دستوى هذا مياه وحبا قرسلين ما يا رورتي كادي دي الشوابي واضح هذا الشيء أكو سكين أخلي خبروا يا ربعان الله عليه ودلنا وكالله وضحسب الله يرادا أو إنجنير كيف حسب معها وحروا يقصد كين أيوه ووضعوا حافظة أولي هاي سومر مريو وي أنا إيشو قارين وأنشق كلها أوكي قرعوا كهالله وبربروا كهالله قروح ليدا وهرقيسوا قروح ليدا كهالله وحاسولي وحافظي سيبوك شاكين أياه Soomaaliland berberiyay hargeysa burcamaha
وسكولو كهالي والعمود ويشرتي جامعة عمود ويشرتي أنا ما قلودي كبر ستين مدينة ويشرتي وحنا كشي كيني ست جامعة قال لي وواحد بس شخصيات أيدستين ولي هرمر بس يلا ما أعرف وحنا ديك الشيكين سوانو أكو إلى هذا كل من يابلس كده جناي هوس كان سؤالي البكوي يا سعيدو أنت كده عيال هذا سومالي لان مركان كلية الدولة كل ما هو الدنيا الدولة كلية سومالي لان واحد قبستين الكادري شعب كله سومالي لان دولة كله سومالي لان هكذا غير ما تمامه وهم نكهلني مامود بنكهلني شعب كحمر با وديابة وحيالي قبستين وطبقية ذي كدستين حيبت وديابة اللوط العيسى وعسعنا ما سوين اسمه مامول كيتشري ماشا كي عدالة وحموس سميو تدكي موكارسيي خبر وحنا نكهل لانه فهم وحنا ومخايل هذا كله هذا هيبان كوري حمر مركا تجيو مخايل غير كونفرنسي ما هو مخايل صوماليين وعيد والبقى نقول تجيو لكن تنهر جيسة كم بسني ومخايل هذا كله هذا هي صراحة وأني الدكان بانفرانيا شرف كان أنا بحسنيا كان قرباوي أو هلك فريسوق بعد كلها شرف كنا أنا يسوحها أبي قلنا دارسان دلع كان قال يعني هلك حبت مشكلة ديكو هلك شيء كان صراحة برلمانك وسديتني يلابو صدح لبيرو عيسى والبهانته يو السنجلي يقل بورسي أفرتا مركا الله يسكدرو مبوحيان حتى كرمك اي وحكو بدلي كران مبوحيان هذا إساء كنتم يتدبوا لي هاي ما ينسمحها هاي كرمك مبوحيان لحي لواتنكي هذه الربعين اللي حلو بدلو حتى سيدا دادك الله كلام كوشيريا هو الوسير واربليك هذه واريك هذه عدو عليها مثليك هذه ديك عدو عليها مثليك هذه اليوم عندما يستيقظن إن يرأت كيسون هذا المعامل كسوي إن يرأت كيسون بليز اوكي كنتم يتضبع وبالفيري وعيسى وقدبوسي والسنجلي والبهانتي وكنتم يتضبع حافظ كلي اسكال داتا دحين اوكي معامل كأينو اغنو والمدحوين هو ايو والسير كماليد هو ايو والسير كارينها كلها هو ايو والسير وحوال بفيري عيدما بفيري ملتريقة بوليس والوحوال بفيري بقول كلا سيداتا وحافظ وليبنا حافظنا كلا قتنا وفيتشي فانو حمك لقاضي وحاو حاوي حي فيسر علي ورابا وحلقها ايام المرق ورمت الشيقة ما الله لما كانت تباد هرقي سبو يلباد قبيال لغي منسا انت كم قد قبيال الكميس ما كان ماشنا اتكهل لسا وحيا الحنون ان دوله هينو قدروا لقى دووبين لكن حمر مركان تغوخ قبيالو كم مقتا ميجا ميجتو والله قرحنا يا دي دعدو ان بنتو والله يا بينا كل طول يقرحيو كان امنيا اتشيغيسي كان امنيا اتشيغيسي الهي با كان امنيا الهي با انو هيليو يو كيناي inaan ku faano maaha Allah keenay shacabkuna way dadaaleen oo waxaan baliyeenaya Allahna waa in siiyay waxa laga yaabaa tan aynu leenahay waa burbur oo amni ma laha inay bari inaga fiicnaato ilaahay waa qaadir tilka ayaan baa la yiri beenaase ay naga fiicnaato kartaa horta waa inaan ku shugrinaa amniga Allah haysta waa inaan ku shugridaano saanka ka deeytaan alxamdulillah ma faan ma hay okay ka gudub waxay maamul sodonkaas sano maamulkaas qabtay anigu uma jeedo hadduu wax ka qabtay xaafadaadii wax ka qabtay xaafad ciise kama qaban ayaan dhaweyd baan ilaacadan dhageysanayo min baa ka hadlayay wixii aniga ilmahayga marka Djibouti ka imaado calaamadax baa la xisaabiyaa oo laga qaado $30 nin kale oo xaafada dhexe markuu socdayna hareeraha leega wax la yiraahdo siida marka waxaan aad meesha ku haysaan walaal wax la sixi karaayo iyo wax la hagaajin karaayo marka dad waxay noqonaysaa inay inagu isku baabareen noqonaysaa anigu hadda weli su'aal kuma weydiin 91 kiina Sultan Abdisalaam baan lahaa waayeel buu ahaa wuxuu jiifay ii joogay meesha la yiraahdo hadaagtimo 91 kiina dagaal ceergaadu ka socday dagaal oo damada xagaaru dagaal ka socday oo xingarol buu dagaal ka socday dagaal baa ku jiray maxaa wax kula yeeshaaba dagaal baa ku jiray ilaa 1993 dagaal baa ku jiray oo waa dagaalamayo dagaal qabiil baa socday maxaa wax kula yeeshaa
waagaag siciidow inagoo kolley taas kugu dambaysa waxaan jeclahay inaan kolley laba su-aalood baa inoo hadhay inaan khadar guud kusoo dhaweeyo bal wuxuu ka odhan lahaa jawaabta aad ka bixisay khadar kusoo dhawo intaan su-aalaha u gelin de horta hadalku iyaanu inaga meeraysanin oo kolley dee wixii nucdiisii weyneed waynu ka dhacnay oo nuxur waynu isnire yoyotan buu ku dambaynaya haddii dee lasii wado laakiin waxaan anigu su-aal weydiinaya wax kaleba ay dambayse adigu siciidow puntland baad gashay puntland baad tidhi waa dhul harti waad qiirood waa kuu taag waaye adigoo marka xuduud ahaan iyo deegaan ahaan la noqdona aniga ila degan meel puntland lagama siiyo xil buuxa ilaa anaankaa waad ogtay inta nin madaxu ku qarxay ee warsangeliya ee puntland wax ka waayey xataa iska dhaaf majeerteenkii kale maxamuud saleebaan mooye cid kale weli talada may qaban waana ta lagula kastamo dowladnimadii dowladnimadii puntland waxay noqotay dunaan 3 nin walaali oo maxamuud saleebaan loo damiyay maaragtay oo guursado taana waad qawaday tanna maanta waad qawsantay xamarow kuu dhaweyna waxa ka deegaan baan ku leeyahay anigu dee deegaan weligay maarag maxaan ku idhahdaa dee warsangeli ku leeyahay oo ku yaalla koonfur maarag ha yeeshee dee maasha allah hadduu jirana waxaan se ku oran lahaa warniyahow hubsiimo ku dar haddii damac ku garayna dee sidii raggaa kale ee tegey ee aniga qaar aniga ahaayeen beesheeda dhexe adiga ay lahaayeen de wuu tegi karaa qofku oo waa qof dee madiisa siyaasadeed qaadan karaa laakiin somaliland maanta beeshaadu go-aan may qaadan waxaa lagu xisaabtaa midkan kaala hadlaya hadalka ay kusoo afmeeraya waxa weeye waar aniga beeshaydu qowad kastoy qabto may qaadan welina ma muuqato inaan somaliland aan kasoo horjeesto dadkaygaan la soconaya reer boorama may qaadan harti muu qaadan go-aan kumay qaadan ay leeyihiin koonfur baan tegayna laakiin dee anigu waxaan arkayaa un nin adiga oo kale ah iyo ragga oo kaa horreeyey dee horta laablakac ama cadho gaar u haysa un inay ka muuqatee waan cadhadeena meeshaan ku dhamaysan waan kooranlaya inaan kala hordegdegina taladeenoo buuran haynu soomaali waxaynu ku kala bixi lahayn haynu raadsanno oo haynu hadalkeenna ka dhigno dad wada socda iyo xooggeena iyo cududeena midaysan haddiise dee laakiinse maanta adiga ay halkaa kaa taagantay anigu weli dareenkaaga warsangeli kama hayo miiriya iyagoo soo fadhiistay kama hayo tuulooyinkaa sigaysa iyagoo baa kasoo saaray weli anaga somaliland diba kuma jirna kama hayo waa kuwa urobayadoodii berigii dhaweyd yimid madaxtooyada inkasta oo aan maqaalay gutay happy may hayn way jirtay in xitaa mararka qaar ay maaragtay niman ciidamiya xanaaqeen oo ay yidhaahdeen laydinma baahnaana laku yidhi way jirtay laakiinse somaliland maanta anigu harti yidhi way naga dhantay oo si cad u soo istaagay ama ha dagaalamaan ama doodba ha ku keenaan dawa kuwa ilaa baarlamanka guddoomiyaha ka ah hartina qaybtiisa dee inaadeero way joogaan oo adiga arkay wasiirada nin walbana xilalka wasiirada horta ma waxa hoose mise xilalka wasiirada dee tiradeenna iyo faraheenna iyo deegaankeenna waynu isnaqaanaaye nin walba dee waxa wax loogu qaybinayaa dee deegaankiisa ama wax u dhow midda labaad ninka marka madaxweyne laga dhigo dee beelaha iyo ama taageerayaashiisa xisbigu way ku kala bataan taas ma jirto laakiinse mid baan kuu qiraya in dalka lagula dhiso in qaybta aad tabanayso la qabto in gobolada bayray aad ay u dayacan yihiin iska dhaafay xitaa burcadaaba kaga bilowyo wixii ka shisheeya in loo baahan yahay agabo badan oo caafimaad in loo baahan yahay agabo badan oo biyaha ah in waxbarashadii loo baahan yahay in shaqaalayntii loo baahan yahay in gobolada bariga aada culays loo saaro way ka muuqataa dowladda somaliland waana kaaga garanaya laakiin khadaro markaad eegto adoo ku wata khadaro markaad eegto baarlamaanka somaliland sida uu isba ka dhawaajiyey waxa uu ku dhisan yahay beelo isku tegay haddaba haddii beelihii darafyadu ay ku yar yihiin oo ayna aqlabiyad ku lahayn sidee baa taa iyada loo sixi karaa weli qawdaadaasna jirto walaal waxaa loo sixi karaa dunida laba shay baa wax loo qaybiyaa dunida marka baarlamaanka la dhisayo lagu jaangoynayo iminka tusaale waxaan idiin siinayaa waddankan ontario iyo quebec oo kale waxa weeye population density-ga lagu qiimeeya iminka quebec iyadoo distinct society sheeganaysa afgaara ku hadasha goosan gaadhay berigii 2005kii baan maynaya
2004 markii ay galeen dee magaranaysa codaynta ay ku waayeen halka habbo waxa weeye iyadoo waxaasoo dhan tirsanaysa oo ka weyn Ontario dhul ahaan haddana populationka Ontario ka badan daraadeed waxa aad uga badan baarlamaanka intuu fadhido Ontario oo tirada dalka ayaa lagu population density-ga ayaa lagu jaangooyay population density-gu wuxuu oranayaa every household kasta waa la tiriyaa tobankii sanaba Ministry of Citizenship iyo waa ka shaqeysa dawladda waxa la jaangooyaa tirada gobol walba degan magaalo walba degan sidaas oo arkaysa markaad soo gasho magaalada Toronto tirada dadka albaabka Mississauga magaalada Leela Scarborough midba tiradeeda halkaas aad ka arkaysaa tiradaas lagu jaangooyaa inaga tiro ma jirto dhaqaalaha lagu sameeyo census gurmadina wali gaadhnay maaha waa mid adduunyo haddii laga caawiyo $100 milyan inaga qaadan karta laakiin waxa la yiraahdaa waxa doonaysaa meeydu waxay ka maarmooyada la yeelaa maanta taananada qodobada baarlamaanka ku doodayna waxa weeye war maxaa beenta la isugu shigayaa intaasoo doorashooyin dalay imika dadka diiwaangelintii cusbooyinka la sameeyo dadkii qaan gaaray ilaa diiwaangelintii u dambeysay iyo kuwa maxaan ku yiraahdaa ay sheegtay inta dib loo tiriyo tirada dadka ee markaa inoo taalo ee ku hayna computerka hal lagu gooyay baarlamaanka sida ay tahay Hargeysa oo qura 8 xildhibaan bay helaysaa oo siyaada goboladana gobol walba inta ka soo baxda 6 gobol hal lagu jaangooyo saasay ku kala baxaysaa waxa dhici karta gobolada number isaga qoray inay wax ka dhimaan gobol ay wax ka maqan yihiin sida Hargeysa kale ay soo korodho marka taa population-ka lagu laakiin reera lagu qoonday karo hadii la yiraahdo hadii lagu qoondayo ee Soomaaliland waxa tagay ilaa iyo dad ka yareen konton qabiil baa degan yani markaan la konton qabiil ma ay soo qura ilaa inta reera yaryar oo reeraha kala oo nisaaq ahayn oo daarood ahayn degan baa badan magac lagu ma qaybin karo population-ka ayaa lagu qaybinaya taasano siciidna ku caraf qaadaya wuxuu siiyaba waagaan halku ka dagayno uu arkaya waagaan deegaan laga hari waayo deegaan cid wax ku helayso taa uu ka qaybinayo uu leeyahay wuxuu haystaa tuuladeeda bariga sanaaga iyo anigu isku haybaanay annagu waxaan ku foorada ilaa awaare ilaa Ethiopia kaliya sanaad baan mustaqinahay ilaa Hargeysaan diganahay xildhibaan noqon karayaano population-keedu caynka yahay واسوناكسن waxaan jecelahay Saciid Cali Qurbaabi inaan ku soo wareejiyo Saciid sida aynu la socono aad hadalkaba u dhigtay waxa deegaan ku leedahay Puntland oo iyada ku tirsan Soomaaliya sidaan loo soconana waxa aad ka noqotay musharax madaxnimo oo Puntland aad uga carartay waana ogeyd wixii kala kulmay inaad cod ka weyday oo aad halkaasi runtii aad kala kulantay guul darro haddaba iyadoo adiga oo taa ogsoon inaad Puntland oo deegaan ahaan aad degantahay sida hadalka u dhigtay aad kala kulantay guul darro Soomaaliyana aad masleedahay marka tii kaaga dhacday Puntland ayaa kaaga dhici doonta sida la socoto haddaba maxaa ay xalku u noqonayaa maadaama aad Puntland ba cod ka weyday Soomaaliya ka weyna aad runtii aan laga yaabin inaad ka hesho xalku muxuu noqonayaa miyaanay ahayna Soomaaliya ku soo guriyo noqoto oo aad walaalaha iyo dadka isku deegaanka hay'adaha wax la qaybsato wixii jirana aad runtii aad tiraaha haynu xalino taayida mina suurtagal ahayn horta maxamed oo waad maadsan tahay khadana waa maadsan yahay Soomaaliya halka waxa dhigay waa qabiil oo إلى كفتم يو كفتم براعي وعيري بدلان وحبك كمتي وحبنا كمان نقطي ارتوى الحمد لله رئيس البرلمان كان بدلان انت جبتيه وانا وسيرنا هذا الكيد بداه مدحوينك كمان نقوم بير ده غير وضي مدان في وسك حدا تاي انا بدي عبد كادي مركاسو دول ما هي لو كاديو دولتي توصل هي كدايو كاديو تان لبعض markaynu eegno isaaqhan bad ku doodaysaa adigu waxaad ka hadlaysaa waxartay deegaanka la yiraahdo Puntland magaca Puntland qurahan deegaanka la yiraahdo Calmadowba Puntland magaceeda oo Ingiriiska ah bada magaca bixiyay talabaad deegaan waan wada leenahay qolooyinka aan walaalahay oo ma jeerteen deegaan dhinaca bariga aanu ka leenahay waliba deegaan ballaaran baan leenahay markay noqoto haday noqoto deegaan ama xad haday noqotana ninkii xadka jaray Sultan Maxamed Ali Jirwaha xuduudda Ingiriiska oo jaray oo sultaankii la ictiraafsanaa waa wada buugtiisu ay taalo leeriga diisa marka xabaan taariikh baan walaay dhibaatada ku haysata ma sugtid moogtahay anigu waan ku aamusaa لكن مش كتير ضد ولا ما هو حكومة جواب كان بحال هذا طفرة بتاعنا دي وين هالشيء
يقدر سياسة وحنا قدروا تاسر تاسان كأورانيا تنكله قدروا والله أديكي ها فما يشوفون شيء ويا حافظة أنا بحاجات شوقة أديكي ها فأكو كلا بحواي ماشى أنا بحاجات تاجر أي قدر طلبات إلى كل كشنان إلى الجيشان تجر هاي بعد الله هاي إثيوبيا حتى واتكسر طلبة صار جيشان دي بنسا مركز يقول بيرسل ده لا وخلص ويه إلى الدولة كلا هاي إلى السودان لا سوق شيء أما الدنيا قال له بجوا مركز يقول بيرسل كسر شيء يدك كلا تجر مركز يسكتري من نور ثان بقولنسا بقول كيف الشن هي أفرتن وحكاية كيين حدود هذه غير عن حدود اللي جاي سده سومالي أما وغايب قلبي بركة اللي يلعبوا بركة اللي يسوق يدك كلا تجر ما ينور تبع كنا قولنسا لكن حدود دي ما صوت شبسته حدود دي ما الغفرة يقبل يلا حدود دي الغفرة إكاد هذا كان شيء إلى مركز أدوب مركز معناها إسكرم ويلي بعد لا ورّي يرجع كأن تصلّي لوكا صلّيتي سيدا أتراو يرتي لو مركي هديت لو على تريو أي ترى كوجو بيعيشوا ورّناقة ورثية وهي أردن بعد كأن ترجع سود جزاتري عقوب بيعيشوا يا ترى كان سوني الآن أو يا حبيبي حبيبنا كل صلاة أنا ورما رجع الله وجرنا إيه إيش واسودان هرجع تري أنا كنت كوجو صدرية بس لو على مساري أنا كوجو صدرية ويجي بجلال ترى كوجو صدرية قدري كذي ولا واحد فانا يعني أوكي كقدر ولا أنا جا ببلان ما قاعد بقى سومالي روح أقرأ وتوا قبيل بقى هذا كو عبينيا وعن ما أمرك قد سينا إن كوجو كيان نلا قبل إلى اعتراف في الصومال لأن إنجليز وكذا ما ويلي قاعد مركز الله مركز طلعت قاعد الله صاروا الله هو يعني صوت علينا وحلو دقع دقع حبا الله دقع فلان وحنو السمية ودقيه عن كل دقيه سيام جلو قبل فلان وحنو السمية إلى رضيق اللغات هذا حلو أنت حمو السلام ومتشهد وحنا هيسامبا إلى رضيق اللغات هذا حلو وأنا جلو ودقاقين وهدان صوتها فضل ما يدري اعتراف آل الحليبة ما الله بقى أنا ودقاقين فهمت بدل لو سميه وقال هلكا يا كوتشتي سالت بدل لو سميه وانتا أرد كوتشتي شيء كي لو سمينا ولا كنت هاجنتاي هذا كان وحنا كبحيا يقولوا والله هرجيسة وحمي يالين برعة لما قيبود أو برء يكون فرعة هرجيسة لبدا أنا أو كلا قيبسان ويسوتك الله ما كان واحد سوحة اللي ست ما كان هاي نوع هاتو وحنا أنا وهذا كوكب كبينة لكن سؤال شيء هذا وصلنا قطة سعيد وعن كويتية هم قوي كاجا دعي بدلين سوماليا الحال كذا وقتها قبيل لسكو دورنا يوم أكو كبينة هاي أكو كبينة أكو ولا ما إلا وين حدا سؤال شاديلة هاتو ولا البدلان مكان سكشر حي شكوب النمان سكشر حي على سكيبان كقاضي وحبوا كواي سبب كانوا وين عديما قولوا مركي قولوا يسوان في عصد الصوت لا يحي عدي تقلعني مجرين ما دو بسلان سوى يلا محمد وحكي لي سامركا وإذا يسميوا إكاكاري على فضان كله وكيله يحربوا وعلى فوقراله فلان مركان يسكشر حي للسياسة كعصبانها للسياسة كعصبوها النقرين عندنا حمو ديبتو لكي إلهي وقرنا واهلا السعيد باهلي السلام عليكم وهذا كعذر دار بانك سوق لي هالكاتي الوقت يقول نوقف الجماعة حتى الله عود لي يضبط ضدهم أو نوقف حتى الله عود لي يضبط ضدهم الذي نبأ بالمحمد بن كل غضنا إنه ضد مقصي يعني سوقنا نذو حتى الله يدوي مثل وقتهم بصاح إنه سيو وايو وقت إنه الجماعة ضد الوش عندهم طاي شغلات حتى الله عود لي يسمع واحد كده هنكتان ومجال ممكن يجي كتان CKCU أما سبب أن أنت رتكون هاي www.ckcu.com وأخذ الجول سعيد علي الغرباوي هو ضد أنه خلينا محمد بن هي كسوي إنه ذاك المدود مدبا أو سيو لفظ مش لفظ قصة دودية وأخذ الجول سمع سعيد علي الغرباوي واجاك كلي سيدا وعبد الله باشا قبل بنو تاجنا waxaan jeclahay laba su'aalood inaan ku soo xiro su'aalna aan qadar guun siiyo su'aalna Saciid aan siiyo
labada musharax midna u sharaxay yahay madaxtinimada Soomaaliya midna baarlamaanka Somaliland hadaba haddaan ku horeeyay Khadar Guun oo isagu sharaxan baarlamaanka Somaliland doorashada soo socotay foodan ugu soo haysa Khadar oo su'aashan ku soo xidhan ku weydiin lahaa waxa weeyaan run ahaantii Somaliland waad ogtahay sida uu Siciid ba uga cabanayo xisbiyadii waxay runtii haya beel kaliyaata ayaa musharaxiin ka ah baarlamaankii weynu ognahay oo sida uu hadalka u dhigay in ay majority ayna beesha dhexe ay tahay ad ka soo jeedo sidoo isagu yiri hadaba haddii aan doonayso inuu Siciid soo xaroodo uu soo galo maxaa arrimahaas oo dhan wax laga bedeli karaa Somaliland maxay wax ku xalin kartaa Siciid iyo inta sii socotaba lagu soo celin karaa aniga waxaan leeyahay maxamedow de horta kulli qofkii kacay waa qofkii kacay oo dad badan oo beeshan dhexe laftirkeedaba dee xamar maanta joogaana xilal ka haya taa waxaan oran karaa un dee horta waa go-aan shaksi anigoon hadalka ku rafanayn Siciidna karaamadiisa ilaalinaya Siciidna hadduu maanta tago oo koonfuriska sharaxo wuxuu ka mid yahay dadka dee shakhsiyan u tegay laakiin beesha uu ka soo jeedo ama beelaha ballaaran ee walaalaheena harti waqooyiga weli go-aan ay Somaliland lagu kala kaco ama gobol lagu kala kacay ama tugaar ay u dhigteen dee ma hayaan badda waad ogtihiin uma hayno Siciid markaa waxaan oran lahaa koonfurta aad u baayso adigoo haddana Puntland la deegaan baa ku leeyay adoo la talima ay geysay dee adoo Puntland ba wax ka waayay oo Somaliland ka cabanaya koonfur haddaad tagto waxaan ku leeyahay dee waxay noqonaysaa un faras aanad lahayn fulistiisa futaqarad baa laga qaadaa waad ku wareeri oo dhibaata ku tala waa taas waa talada aan kula talin lahaa aan midowno aan wax wada saxno halkeennan aan saxno tan aad aniga ay leedahay dee beesha Somaliland waa oo iyadii baa xitaa wax sii kala sheeganaysana waa run way jirtaa waa ta habeenii maalin idaacadaha ka maqlayso waa tii aniga buurtay saartay waa ta goorma maalin baka way jirtaa cabashadu laakiinse waxaan oran lahaa sabirro waayo waxaynu ka waayaa arag aynu ku nahay wixii naga soo maray Soomaali maalintii aan bisiya baraal la tuuro kala duulkii iyo wixii dhacay waa dadka koonfursiga la isugu raftay Soomaali wata weli ka soo kici kale dhaawaciga marka horta anigu ka bariyahan dib taxadir asiyaayo maamul jira iyo dhaqan jira iyo meel labada taalo inaan dab kulaaqtanayaan geliyo horta ma jecliye anigu horta sabir baan qaadanaya waxaan leeyahay war Somaliland hayso sabirno war way hagaagi war way toosi war siyaasiga xubin naga tagi aan maalmaysa siinaan leey Siciid intaasan hadalka kaga hadlay Siciidowna dee adiga waa ku soo ducaynaya koonfurda waa u duceeyay dowladda islaamiyeen ilaahay iyagana nabad u soo tabaaro waayo sidii maantii iyagoo nabad qaato dowladnimada adag yeesha ayaa dhaanto wada hadalkayga sidii maantii yihiin maanta se laakiin cid aan la hadlo garan maayo hore u soo dhacday laakiin ha soo adkaato dowladnimadoodii oo cid aan la doodo waxaanu kala goosano wax kala qaybsano ama dee wuxuu lagu kala baxo ee waxa yimaadaan laakiin maanta waxaan dee runtii aan gacan saaraa ma jirto aad buwadii ogtahay oo dhulka baraal shabaab baa haysta barka diilooyin hubeysan baa jooga kaalkacyo la kala degay dawlad la socota inta hawl la qabanayo iminka goboladii dhexe sunna wal jamaa ay ka faraxasheen wali waxa sugaysa Jubbaland dee waa inta hawlta la wada socotaa marka in walba gurigiisu marka hore uu ka bilaaba charity begins at home in walba wanaagiisa gurigu ka wadaayo anigu han iska dulmanaado han wax tarto laakiin taydaas la dhex fadhiyay hagaajinaya intaas ma ku soo gudbinaya waa hagaag waa suwanaagsanad ba maasanta Khadar Guun haddaan ku soo noqdo su'aasha ugu dambeysay Siciid Cali Qurbaabi Siciid oo sidaynu labada socono siyaasiyiin mug iyo miisaan culus ku leh dalka Somaliland ayaa iyagu runtii si wax u socdo Somaliland mar hore ka qawiyay oo diiday Soomaaliyana tagay sida Axmed Ismaaciil Samatar Ismaaciil Buuba iyo Ali Khaliif Galeeb gabi ahaanba maanta waxa ay rug u noqotay joogaan Somaliland gaar ahaan caasimada haddaba adigoo ka tusaale qaadanaya siyaasiyiinta waaweyn ee magaca iyo maamuuska leh miya aanay ahayn in aad runtii adigu halka ku soo noqoto Somaliland oo aad xisbigaasi ka yagleesho Somaliland adiga oo runtii doonaya sidii ay Somaliland mid loo heli lahaa wixii aad tabanaysan loo sixi lahaa taa lafteedu miyaana ka habboonayn intii aad ku soo hungoobi lahayd Soomaaliya ومحمد واد ما سنتهي خضرنا وما تسيهي عبد الله قلنا وما تسيهي هذا ما سنتهين حدان شاشة تابطو أما أن قد قلو ماشا الله إلا كل أرض صوماليا كل أن إيا صوماليا الله كلا لكتين
dabeecad khadar lagu yaqaana baa jirta oo marmar markuu waxwaalayo wuxuu Soomaalnimada diiday wuxuu ilaalinta af Soomaaliya ku hadashaa horta Puntland iyo Soomaaliya waa isku mid Puntland waa Soomaaliya Soomaaliyana waa Puntland okay waxaan hadalka uga baxayaa oo leeyahay anu Somaliland waa hargeysana wax fiican igama muuqdee 30 sano wax lagu sixi waayay 2 cisho iyo 10 cisho lagu sixi maaye walaalow bal idinku horta idinka beelahaaneed idinku soo heshiiyo oo markaad idinku heshiisaan oo waxaan ku soo kala baxdaan marka haynoo ahaato waa si wanaagsan intaad sidan tihiin niyo Soomaaliyada ila fiican oo hadda horumar ka muuqda oo caalamkii oo dhani u hambalyeynayaan oo deyntii Siinaaya wax ku soo bartay musabix lacagtu wax ku soo bartay ila cali walaaba lacagti wax ku soo bartay oo Soomaalinimadu markay jirtay loo qaatay baa hadda la cafinaya wax ayaan daraa oo aan ku soo gabagabeynaya deyntii wax lagu soo bartay lagu soo intifaacay waxay qaar leeyihiin anagu shaqo beli waxa la cafinayo marka aniga waxaan leeyahay horumar fiican baa Soomaaliya ka socda iftiin baa ka socda dawladnimo taama dalatay waxaan iroon lahaa horaan washallayseen degdegii mar walbana waa degdegtaan markaad jabhadda samaynayseenna waa degdegtay markaad 91kiina waa degdegteen hore markii Soomaaliya loo tagayna waa degdegteen degdegiinu ilaa waqtigii buu soconayaa beesha dhaxow waxaan hadalka ku soo gabagabeynayaa intaad idinku fadhiisataan miyirkana eegtaan bal idinku dhex ahaantiinna magacaa ku soo heshiiyo markaad soo heshiisid aynu isu nimaadno gobolada waqooyi waxa ku heshiiyaan ama aynu Soomaali raacno ama aynu si kala noqonne horta idinku soo heshiiya assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waa si wanaagsan Sidaale Qurbawi iyo Khadar Guun Jaamac oo dooda laga qeybgeliyay saaxiibkay Maxamed Cabsi uu daadinayay anigoo Cabdullaahi Gooda oo qayb ka ahaa aad iyo aad baad u salaamantiin dhammaantiinba labadiinaba aad iyo aad baan u salaamaya doodna ma noqonayso dood xiran waa dood soconaysa haddii Allah awood leeyahay وين سوى الدولار إن شاء الله هدي الله ودري يطلع كان كده جزء من نواسي KCU كده جزء من 93.1 FM وتوية نواحي كده أما النور الأمريكا سيدوك روح أنا قاعد هنكسر صمود أنا نترسكوا عن هاي www.vkcu.com وعكون كده هنكسر في يوتيوب كانوا كوا عن هاي محمد أحمد عيجي أما عيجي ستوريو يوتيوب هذه أدواتي كمان دقيقة محمد وهاجك waa si wanaagsan waa gunaanadkii gabagabadii waxaan aad ugu mahad celinayaa labada musharax ee kala ahaa Saciid Cali Qurbaawi oo ah musharaxa xisbiga Hiigsi Qaran ee ka sharaxan dalka Soomaaliya una sharaxan madaxtinimada dalka Soomaaliya sidoo oo kalena musharaxa golaha wakiilada ee Somaliland Khadar Maxamed Jaamac oo ku magac dheer Khadar Guun labadaasi musharax ama aqoonyahan aad baan ugu mahad celinayaa dooda runtii bila turxaanta lahayd ay ku wadaageen halkan iyada ACKCU aad iyo aad baan نبدي نبغى نجمع هالعلني يا خضر إيو سعيد بقى. هذا مع سيد محمد هذا يجي مع عبد الله قدام كوحدة بعد CKCU. هذه أتبان إني كم هالعلني يا محمد يا عبد الله كوحدة CKC. سعيد هو سلام يا سعيد صاحب كيف هو سلام يا سعيد وصاحب ما دون أكسرين هذا. خبروا كل يلا. nin ka fiican oo bila turxaan ma arag inta dad la doodayay aad ku salaamaya صح حسنا طاله لازم طاله وهاجك وانيga iyo Cabdullaahi Good Muuse oo idin leeyahay isma qaldan booxiisa la inta aynu ku kulmano barnaamijyo caynkan oo kale waxaan igaga tageynaa halkani waa CKCU laanta afka Soomaaliga ee idaacada magaalada Ottawa aalaba naga dhageystaan mowjada dhererkeedu yahay 390.1 FM caalamka oo dhan www.ckcufm.com salaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh حرنما إيو ما موسلني مشاهدين في هالقم يقوشو دي ودشي هالقم كلو ميدوب يحسكني ومالنتان حرنما إيو ما موسلني